qisadan waxay dhaxmartay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo nin reer baadiye ah oo ka oysiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa uu ka soo degay malakul jibriil. intaan u sii gudagelin qisadayda fadlan janaalka subscribe garee gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walbo aan soo gelino muuqaal barteena YouTube. mahadsanid. nabiga maalin maalmaha ka mid ah asagoo kormeeraya xaaladda dadka ayuu maqlay nin dhahayo yaa kariim. wuxuu nabiga ka daba dhahay yaa kariim. ninkii ayaa ku celiyey yaa kariim. nabiga ayaa ka daba dhahay yaa kariim. ninkii reer baadiyaha ahaa intuu nebiga fiiriyey buu yidhi ninkaagan wejiga furan ee qaabka qurxoon inaan reer baadiye ahay darteed miyaad iigu jeesjeesay? alla ayaan ku dhaartay qaabkaaga qurxoon baan kugu dhaafay ma ahane nebiga ayaan kuugu dacweyn lahaa. nebiga intuu qoslay buu yidhi walaalkaygow ma taqaanaa nebigaaga? wuxuu ninkii yidhi waan aaminay mana arkin. wuxuu ku dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ogow inaan ahay rasuulkaaga adduun iyo shafeecaaga aakhiro. ninkii wuxuu u orday dhankii nebiga sallallahu alayhi wasallam uu jilba jabsaday gacanta ayuuna ka shumiyey. nebiga wuxuu yidhi ha igu samaynin sida loo sameeyo boqorrada cajam iyo ruum. markiiba jibriil ayaa soo degay wuxuu dhahay nabadgelya dushaada ha ahaato maxamedow. rabbigaaga wuxuu ku leeyahay ninka kula jooga dheh yuusan damcin deeqdeena waan xisaabinaynaa maalinta qiyaamaha. markuu nebiga sallallahu alayhi wasallam u sheegay ninkii wuxuu yidhi haddii uu i xisaabiyo anigana waan xisaabinayaa. nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi sidee u xisaabinay rabbigaaga? ninkii reer baadiyaha ahaa baa yidhi hadduu dembigayga igu xisaabiyo waxaan ku xisaabinayaa dembidhaafkiisa. haddii baqiilnimadeyda igu xisaabiyo waxaan ku xisaabin doonaa deeqsinimadiisa. hadduu igu xisaabiyo daciifnimadeyda waxaan ku xisaabin doonaa awooddiisa. markaas ayuu ooyey rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa ay garkiisa qoyso ilintii. waxaa soo degay malakul jibriil oo yidhi rabbigaaga wuxuu ku leeyahay oohinta jooji waxaa ku mashquulay malaa'igta carshiga alleh. midka kula joogane yuusan na xisaabinin annagana ma xisaabinayne wuxuu noqon doonaa rafiiqaaga jannada.